waan ku faraxsanay in dhammaan madaxdii hay'adaha cadaaladdu labadii heer ay maanta halkan iskugu yimaadeen iyadoo loo wada joogo program ama arrin muhiimad gaar ah inoo leh. waxaan rabaa marka koowaad inaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee federaalka uga mahad celiyo qabanqaabada kulanka kan iyo inay halkan iskugu keentay dhammaan madaxdii kala duwaneyd ee labada heer. runtii waxaan aaminsanahay hawsha aynu maanta halkan iskugu nimid waa arrin muhiimad gaara u leh dalkan iyo dadkan iyo guud ahaan ummadda ee bini'aadmiga uu ilaahay abuuray. hoggaamin haddii la waayo toolmoon oo hagaagsan oo ummadda ku hagi karta dariiqa toosan iyo waxa halka loo baahan in la gaaro waxaa xaqiiq ah ummaddaas inaanay guulaysan karin. hoggaan marka dhaqankeennii ku noqoto waxay ka timid xadhigga aynu awrka ku xidhno dabeetana lagu hoggaamiyo awrkaa marka qoorta xadhigga looga xidho ku dabagelayo awr badan oo kalena isaga gadaal lagaga sii xidho dabeetana waa iska hor soconaysaa waxaasoo dhan awrtaasina waa ku daba soconaysa. dana hoggaamiye horta dhaqankeenna halkaasuu ka yimid. afkan qalaadna leadership waxaanay u bixiyeen. marka hoggaamintu waxa weeye ummad waxa ay isku dhaaftay. hoggaamiyihii ugu weynaaye adduunyadan soo marayna oo intuu ilaahay abuuray wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hoggaamiyihii ugu weynaa dunida ee soo mara. waxaanuu ahaa ciwaanka halkan ku yaalla ee la yidhi transformative leadership hoggaamin toolmoon oo wax bedeli karta. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tusaaleya waxa uu soo baxay iyada oo ummaddii carbeed oo wakhtigaa ka soo baxay xaaladda ay ku sugnayd aynu naqaano dhagaxaanta iyo qoryaha iyo waxyaabaha la caabudo timirta iyo laga dhigto ilaahiyo laga dhigto hablaha nolosha lagu aaso lays addoonsado lays gumaysto dhib oo dhan ay jirto. dabeetana mugdigaas oo dhan intuu ka saaro wuxuu ku hoggaamiyey isagoo waxyigii ilaahay hagaya inay noqoto ummad ka talisa adduunyada oo dhan inta u dhaxaysa China ilaa iyo Spain. nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaal kuma gaadhin qori kuma gaadhin xoog kuma qabsan marka wax yar laga tago waxay ku timid hoggaamin. marka horta tusaalaha ugu weyn ee loo soo qaadan karo hoggaamiyo waa nabiyullaahi maxamed. waxaa tusaale halkan ku yaalo programka aad ku arkaysaan Nelson Mandela tusaalaha hoggaamiyaasha marka laga hadlayo. hoggaamiyahaas casrigan dunidan aynu joogno 33 sannadood buu xabsi ku jiray. dabeetana markuu ka soo baxay ma aargoosana nimankii 33 sannadood xabsiga ku hayay iyo kuwii u halgamayay dartood loo xidhay. wuxuu yidhi waxaynu dalkeenna ku badbaadin karnaa inuu horumar ku gaadhsiin karnaa inaynu saxafinaynu wada shaqayno. deetana qolyihii argagixisada u yaqaanay wakhtigaasi magaalooyinkoodii iyo caasimadahoodii markii dambe taallooyin bay uga dhiseen. yacni wuxuu ahaa hoggaamiye ku sifaysan ciwaanka uu maanta tababarkani leeyahay. hoggaamintu markaa waxay gashaa heer ummadeed oo waa taa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu kaga warramayno. waxay gashaa heer dal waa taa Nelson Mandela tusaalaha loo soo qaadan karo. waxayna gashaa heer hay'ad ama institution oo kuwa aynu halkanna u joogno dal ahaanna u joogno hay'ad ahaanna aynu u joogno. hoggaamiyahaasoo keliyaata hoggaamiyuhu markaa waa inuu garanayo halkeed maanta joogtaa halkeed u socotaa halkee ayaad rabtaa ugu dambayn inaad gaadho hadafkaaga ugu dambeeya yoolkaaga ugu dambeeya halkee ayuu yahay halkaasi sideebaad ku gaadhaysaa. aragtidaa markaa inuu hoggaamiyintu abuuri karo oo fiishanka iyo yoolkaas maaragtay uu xariiqi karo kadibna dadka uu hoggaaminayo uu tusi karo odhan karo xariiqa aynu rabno inaynu gaadhno waa kaas weeye halkaa inooga bidhaamaya. waxa aynanu ku gaadhi karnaa waxa weeye waa dariiqaa jidkaasaynu maraynaa. deetana keligii socdo aanu noqone dadkaasi uu empower gareeyo xoojiyo si ay ula xaqiijiyaan
inuu ku horgalo isagu hadafkaas iyo gaadhidiisa iyaguna ay noqdaan mishiinadii iyo dadkii qabanayay shaqadaas oo aanay noqon dadka shimbira noqon shabeelle ay noqdaan hogaamiyaha la rabaa waxa weeye waa kaas weeye marka waxaan isleeyahay adduunyadana maanta buwaagta ugu badan ee la qoro waxaa laga qoraa hogaaminta tababarada ugu badan ee la bixiyo waxaa laga bixiyaa hogaaminta yacni waxa la aaminsan yahay oo la og yahay micnaha ay leedahay haddii aad eegtaan shirkadaha waaweyn ee maanta horumaray shirkadba waxay ka saraysaa ay ka hoggaan wanaagsan tahay marka dabcan waxaan aaminsanahay arrintani inay tahay arrin aad iyo aad u muhiima hogaamiyaashii hay'adaha kala duwanna maanta ay halkan joogaan aan isleeyahay wax badan baan ka faa'iidi karnaa haddii aynu say tahay aynu maanta uga faa'iidaysano waana ku bogaadinaya wasaaradda inayna ka dhigin kii koowaade ay qorsheynayso in sanadkiiba dhowr mar la iskaga yimaado oo arrimahani laga wada hadlo marka runtii aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaanan dhammaanteen inagula dardaarmayaa fursaddaasi inaynu ka faa'iidayso ma aha cashar laynoo dhigayo iyo tababar layna siinayo laakiin waxa weeye waa aqoon isweydaarsi qof khabiiri uu fududaynayo oo sahlayo sidii aqoonta inagu jirta ay inooga soo bixi lahayd kadibna aynu uga faa'iidayn lahayn fursadahaas in lagu tababaro laftigeedu haddaad madax tahay ceeb maaha madaxweynayaasha adduunyada waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad aragteen madaxweyne Obama oo islaan yar ay leedahay maya kadaasaa odhan isagoo wallahi ku jiray maaragtay hagayso tababar siinayso adduunyada waxaa jira dad khubaro ah oo madaxweynayaasha tababarada siiyo ra'iisul wasaarayaasha siiyo wasiirada siiyo yacni qofku ma aha inuu madax yahay macnaheedu ma aha inuu ka maarmo aqoonta iyo tababarka dad baa jira iyagoo khubaradaas ku shaqo dadkaas tababara marka taasna waxaan isleeyahay inaan dareemin in haddii xataa tababar lagu magacaabo in laga faa'iidaystaa waxa weeye waa ila mudantay darajo kasta oo maaragtay la joogo adduunyadana qof keligii socda oo aqoontiisa iyo aqligiisa yerintu gaadhsiisan yahay ku meel mara ma jirto madaxweynena ahaade madaxweynayaasha dunida khudbadana waa loo qoraa tallaabooyinku qaaday waa loo sheegaa hawlaha wanaagare waa lagu tababaraa intaas oo khubaraa ayaa la shaqaysa oo aanu la'aantood tallaabo qaadi karin ilaa iyagu tilmaantooda iyo hagitaankooda oo helo kadibna isagu waa saxa shaqadana wuxuu qabtaa sida iyagu ay ugu hagaan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam tusaale ugu wanaagsanana waxa la faray isagoo waxay ku soo degaya ayaa la asxaabtaada la tasho Soomaa kadibna go'aan gaadh hogaamiye waa kaas dhaqanka Soomaaliga odayaasheenina hogaamin jiray ee madax dhaqameedka ahaa waxa weeye geedkii weynaan ku shiri jirnay marka la soo fadhiisto ee hadalka la wareejiyo waa dhageysanaya maanta oo dhan aragtidaas uu ururinaya fikradahaas uu ururinaya kadibna marka ay soo gabagabowdo ayuu go'aanka gaadhaya isagoo talooyinka ugu fiicnaayo meeshaasi ka soo baxay ku salaynaya marka runtii arrintan arrin muhiimadeeda la weeye mudan inaynu ka wada faa'iidaysano dhammaantiina waa idinka mahadnaqaynaa ka soo qaybgalkiina waana idinku soo dhawaynaynaa magaaladiina iyo caasimadiina xamar odayaasha ka yimid ee dawlad goboleedyada aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa inoo furan yahay kulankeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.